sidaasay noqon kartaa cadaadis bay noqon kartaa oo labada nin ay isku hayaan guddoonka baarlamaanka imaanaya maaragtay cadaadis siyaasadeed ku saaraya laakiin siiqa iska timid oo la iskaga soo qoray oo sheekh aadan iska qortay maaha waa wax khilaaf salka ku haya noocu doonaya hada ama guddoomiyaha baarlamaanka ha ahaado ama khilaaf kale oo aynan weli ogaanin ha ahaado laakiin waa khilaaf rasmi weeyaan dastuurkii ay qorteen ee uu ku dhaqmeeyey intii doorashadiisa ka horreysay iyo doorashadiisa intii ka dambeysayba ee hadda isbedesho uun shalay isbedeshay oo shalay keliya saddex qoraal oo u malaynaya inay saddex saacadood isku xigta la soo geliyey saddexdii saacadood isku xigtay la soo kala geliyey saddexda qoraalba saddexdaba madaxweynaha dowladda Jubbaland dowladda Koonfur Galbeed madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed ku qornaa marka wax la iska dhahay iyo siiqa la iska soo qortay maahan ujeedo weyn baa ku jirta marka dastuurkii la ansixiyey oo isaga sheekh aadan ansixiyey ayuu isaga gacantiisa maantana uu inaleeyahay waxba kama jiro dastuurkii marka waa wax soo bixi doona laakiin dhaawac waxaa jira dastuurka uu dhaawacan yahay hadda siday ku socoto dastuurku in meelo fara badan isagoo markii horeba laga soo dhaawacay bismillaahi raxmaani raxiim kulanti waxaan wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena subaxnimo waxaynu qodobkan ku eegi doonaa haddii rabbi qadaro sida aad la socotaanba waxaa 2 maalmood ka hor magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kusoo laabtay hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ama madaxweynaha maamulka koonfur galbeed loo doortay aadan maxamed nuur aadan madoobe oo horey u ahaa guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya soo noqoshadiisuna waxyaabo badan oo kala duwan ayay daaranayd sida lagu warramayo waxyaabahaasi waxaa ka mid ah in uu wareejiye xilkii uu horey u hayay guddoomiyaha baarlamaanka inkastoo waqtigu uu dhammaaday ha yeeshee dowladda soomaaliya ay ku doodaysa in sanad u dhiman yahay in xilka uu wareejiyo qofkii loo dhisi lahaa xilkaas sidii uu door ugu yeelan lahaa ayaa qaybka sidoo kale kulamo kala duwan oo siyaasadeed inuu magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya isagoo ah madaxweynihii koonfur galbeed ka bilaabo ayaa iyadana qayb ka ahayd waxyaabaha uu caasimadda ugu soo laabtay haddaba bal waxaynu eegi doonaa ilaa iyo hadda waxaa soo baxaya warar aan 100% la hubin oo tilmaamaya in durba uu jiro istuhun iyo weliba isxifaalan ama kala shaki soo kala dhex galay madaxweynaha jamhuuriyadda ee muddaxileedkiisu dhammaaday mudane xasan sheekh maxamuud iyo hogaamiyaha loo doortay koonfur galbeed aadan maxamed nuur aadan madoobe arrintaana waa eegi doonaa kulamada siyaasadeed ee aadan madoobe uu bilaabayna iyadana waa eegi doonaa gabagabada barnaamijkana waxaynu daawadayaal ku eegi doonaa hadalkii xalay maqribkii ka soo baxay madaxweynihii hore soomaaliya shariif sheekh axmed oo ah ragga ugu waaweyn mucaaradka soomaaliya ayaynu iyadana eegi doonaa dad kala duwan ayaa siyaabo kala duwan hadalkaasi u qaada dhigay qaar ku sheegay inuu calacalay shariifka iyo weliba qaar ku sheegay in uu hanjabay islamarkaasina ay tahay digniin maaragtay dhinac dagaalka ah haddii uu lug bixi waayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud saaxiibka cabdishakuur oo ku sugan stuudiyaheena nairobi ayaa igala qayb qaadanaya barnaamijka soo dhawaada saaxiibayaal cabdishakuur soo dhawow bal aan ku horreyna aadan maxamed nuur muqdisho kusoo laabtay kadib tallaabooyin noocee uu qaaday markii uu muqdisho ka soo laabtay kadib doorashadii uu ku galay magaalada baydhabo bismillaahi raxmaani raxiim nuurow aad waan dhowahay aadna waad u mahadsan tahay adiga shacabka soomaaliyeed ee halkan inaga daawanaya waan salaamaya waxaan leeyahay subax wanaagsan meel kasta oo joogtiinba markaynu ku horeyno doorashadii koonfur galbeed ka soo dhacday lasii wada ogaa natiijadeeda dhowr bilood ka hor lasii ogaa inuu kusoo bixi doono guddoomiyihii baarlamaanka sheekh aadan madoobe uu kusoo bixi doono sidii la saadaalinayay bay u dhacday hase ahaatee waxaad moodaa sheekh aadan markuu madaxweynaha uu doonayey iyo hadda inuu laba shakhsi kale yahay oo lana sii saadaalinayayoo ay dad madaxahoo ay hore usoo wada shaqeeyeen inuu kamid yahay madaxweynihii hore koonfur galbeed oo hore usii sheegay uu yidhi aadanka la yaqaano waxaasan yaqaana ma ahane waa aadan kale oo ku dhex qarsoon baa jira aadanka xasan uu yaqaano markuu soo laabtay magaalada muqdisho kusoo laabtay oo ama sii dheereen aan filaya inay daraad ahayd ama 4 maalin ka hor inay ahayd shaqo ayuu bilaabay kulamuu bilaabay goonigooniya wuxuu gooni ula kulmayay safiirada beesha caalamka jooga magaalada muqdisho sida safiirka qatar uu la kulmay safiirro dhowr uu la kulmay safiirka ingiriiska safiiradaasoo dhan kulley danaha koonfur galbeed iyo sida wararka lagu soo sheegay wuxuu kala kulmayey waxyaabaha horumarinta iyo ku saabsan kaabayaasha dhaqaalaha sidii koonfur galbeed doorkooda ay uga qaadan lahaayeen maamulkan cusubna ay ula jaan qaadi lahaayeen safiiradaasi beesha caalamka ka jooga magaalada muqdisho kulamo kaloo siyaasadeed oo uu gurigiisa ku galayeyna way jiraanoo waxaad moodaa inuu campaign adag ku jiro oo
waxyaabaha hadda la tuhmayo in isaga iyo xasan sheekh maxamuud khilaaf u dhex dhigi doono ama uu muuqdo khilaafkaasi ayaa jira isaguna kulamo siyaasadeed oo uu u gogol xaadhayo qofka isaga bedelaya kursigii gudoomiyaha baarlamaanka oo weli isagu ku fadhiyo ilaa hadda iska casilin qofkii bedeli lahaa campaignkiisana dhinac buu nuuro kaga jira marka shaqo fara badan baa uu wadaa Sheekh Aadan oo magaalada Muqdisho uu ka wadaa aadna iyo aadna uga culus sidii hore Sheekh Aadan la filayay inuu yimaado oo madaxweyne noqdo iska casil halkan uu shaqada koonfur galbeed ku ekaado kuma ekee shaqadii federaalka waxaad moodaa uu ka soo tagay inuu hadda gacmo kale oo waaweyn uu la soo baxo kula dhex jiro hagaag cabdishakuurow markaan eegno waxaa jirta arrin ilaa iyo shalayba si weyn loo qaadaa dhigayay bal waa u iman doonaa ololaha uu ku jiro gudoomiyaha baarlamaanka uu ugu jiro iyo weliba sidoo kale kulammadaasaad sheegtay inuu safiirada la yeeshay intaasoo dhan waxaa ka horeeya waxaa laleeyahay aadan maxamed nuur waxa uu jebiyey oo uu khilaafay dastuurkii isaga uu ansixiyey waa ansax uu yidhi la sheegay in la dhammaystiray dastuurkaas waxaa ku qoraa in dowlad goboleedyada ragga jooga hogaamiye loogu yeedho intii uu ololaha baydhabo kaga jiray iyo intii la dooranayay iyo wixii shalay ka horreeyey oo dhan hogaamiyaha musharaxa hogaamiyaha intaasaa la lahaa laakiin shalay wuxuu bilaabay qoraalladii uu kusoo qorayay ama la soo gelinayay bejka dowlad goboleedka South West State House kulamadiisana lagaga warramayay uu la yeelanayo ama kulamada siyaasadeed Muqdisho uu ku galay lagaga hadlayay waxaa lagu soo qorayay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ma aha dowlad goboleedka madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur arrintaas waxaa la leeyahay wuxuu dib ugu laabtay dastuurkii 2012 oo uu si rasmi ah ugu dhaqmayaa waxa uu laalay dastuurkii isagoo ansixiyay arrinta sidaa odhanaysa maxaa laga fahmi karaa cabdishakuurow nuuro sida hadalkayga hore ku jirtay horay waa loo sheegay Sheekh Aadan inuusan ahaan doonin Sheekh Aadanka uu yaqaano madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku xisaabtamayo uu noqon doono Sheekh Aadan kale oo dhaqamadii hore loogu soo yaqaanay dadka soo wada shaqeeyaan ama RRA ay ka soo wada shaqeeyaan ama siyaasadda koonfur galbeed ama federaalka ay ka wada shaqeeyaan cimriga isla cimriyeen aqoonta ay u lahaayeen waxyaabaha ay ka bixiyaan fafaalooyinka inuusan ahaan doonin aadankan iska aamusan inuu ahaan doonin aadan isu arkay inuu dawlad haysto awood maaragtay kala oo maanta uu kula challenge gareyn karo haysta hadduu helo inuu la challenge gareyn doono Xasan Sheekh Maxamuud hore baa loo soo sheegay labada qoraale isku xigta nuurow page-ka la soo dhigay South West State ama koonfur galbeed maamul koonfur galbeed page-ka rasmiga uu isticmaalo labada qoraale isku xigta ee la soo dhigay mid shalay oo ahaa midna uu ka sii horeeyay maalinkii ka horeeyay shalay maalin daraad uu ahaa midna waxaa ku qoran hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed baa ku qoran midna waxaa ku qoran madaxweynaha dowladda koonfur galbeed baa ku qoran marka waa laba siiqo aad u kala fog waxaa dadka qaarkood oo siyaasadda u dhown doolaalaad waxay ku fasirayaan inay koonfur galbeed noqotay meeshii lagu tijaabinayay siyaasad kasta ama rabitaan kasta oo xasan lahaa isagoo oo kala baqaya ama kala xishoonaya dowlad goboleedyada kale deriska la ah isagoo xataa haybahan uu ka soo jeedo oo jawhar u dambeysay habeenkii dhaweytay markuu ku sugnaa isbuuciyan soo dhaafnay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu ugu yeedhayay hogaamiyaha meesha jooga madaxweynaha Hiirshabelle ugu yeedhayay hal mar afkiisa ma aysan ka soo bixinin hogaanka Hiirshabelle ma ayna ka soo bixin marka koonfur galbeed waxay soo aragtay baa la leeyahay inay noqotay suntii lagu tijaabinayay jiirka ama dooliga lagu tijaabinayay ibn aadan kolkaas ay soo gaadhaa marka iyagu maadaama waxa tirsanayaan sidaana way noqon kartaa bay laakiin dad kale oo siyaasiyiin oo la xidhiidhnay oo xoga ka haya waxay noo sheegeen khilaaf weli aan soo shaac bixin inuu jiro oo aad u culus khilaafkaasina wuxuu ku saabsan yahay guddoonka baarlamaanka cidda bedelaysa gudoomiyaha baarlamaanka cidda imaanaysa ee lagu bedelaya Sheekh Aadan wuxuu wataa nin la dhaho Saadaad Cali uu wataa oo dabcan maaragtay maxaan ku raadayay ay isku dhow yihiin ay aad isu fahansan yihiin burabayna kursiga ku wareejiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya nin uu ballan qaaday oo madaxweynaha koonfur galbeed rabay oo uu ka soo reebay oo xildhibaan xoog ku soo siiyay oo ballan qaad adag haysta oo madaxweynahana fayl adag gacanta ugu haya oo faylka dawladda Turkiga ninka gacanta ku haya ama saaxiibka ugu dhow Turkiga ee Soomaaliya jooga oo Cabdiqaadir madaxana furana ayay maaragtay wasiirka dekedahana hadda ah
ayay maaragtay maxaan ku rayo xasan sheekh maxamuudna la rabaa marka labadaa rabitaan oo aad u kala fog ayay kala wataan wuuna diiday gudoomiyaha sida aan xogta ku hayno madaxweynaha koonfur galbeed ama hoggaanka koonfur galbeed wuu diiday inuu ka tanaasulo inuu saadaad cali inuu ka tanaasulo waay cabdishakuur waa kusoo noqon doonaa su-aalo la xiriira qodobka haddaad ka dhawaajisay laakiin arrinta hore dhinaca dastuurka haddaan sii yaro fiirino dadka qaar waxay leeyihiin siiqooyinka in la qorto waa iska caadi dastuuriyan iyo sharciyan marka loo eego labada dastuur ee hadda soomaaliya leedahay ee midna mucaaradku aaminsan yihiin midna dowladda xukunka joogta aaminsan tahay waa dastuurka la yidhi waa la dhammaystiraya kii hore 2012 ee kumeelgaadhka ahaaye midna wuxuu qorayaa mas-uulka dowlad goboleedku inuu madaxweyne dowlad goboleed yahay midna wuxuu qorayaa inuu hogaamiye yahay maamul marka siiqa caadi oo la iska qortay ma noqon kartaa marka la fiiriyo dadka qaar baa waxay ku doodayaan wax macno badan ma keenaysa in maaragtay uu madaxweynaha koonfur galbeed lasoo qoro iyo in maaragtay hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed lasoo qoro marka sharciyan marka la fiiriyo wax iska caadi ma noqon kartaa siiqadu nuur wada wax iska caadi noqon karto dastuurka laguma soo qoreen waxaa lagu dayn lahaa ereygii hore la iskaga dayn lahaa oo qof walba wuxuu rabo ku qoran lahaa madaxweynaha marka la yiraahdo maaragtay waxaa kaga habboon hoggaanka kaga habboon oo ereyga siiqada haddii la adeegsanayo ka dastuurka dambe ku qoran baa 100% habboon oo dalku intaasoo madaxweynuhu leeyahay marka beesha caalamka markaan la kulmayno waa lagu wareeraa madaxweynaha jubbaland madaxweynaha koonfur galbeed madaxweynaha hirshabelle madaxweynaha jamhuuriyadda waa wada madaxweynayaal waxay ku kala duwan yihiin oo dadku kala garanayaan male marka laakiin jamhuuriyad iyo maamul bay kala yihiin kaadi ma ahan nuuro marka iyaga laftigooda dowlado weeyaan waa dowladda jubbaland waa dowladda koonfur galbeed waa dowladda hirshabelle waa dowladda puntland wax dowlad goboleed oo raacsan ma jiro iyaga laftigooda dastuurooda way ka saareen jubbaland bay u dambeysaan u malaynayaa way ka saartay oo dowladda jubbaland hadda weeyaan marka dastuuriyan markaan dastuurka ugu noqono si kas ah oo nula kac ah ayuu u jabiyey maaragtay sheekh aadan ayuu u jabiyey dastuurka waxaadna moodaa inay uu rabo inuu wax cadaadiyo oo cadaadis uu saarayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo uu rabo waddo uu madaxweynuhu ku socdo inuu ka leexiyo marka waxa kaliya uu ku qasbi karo waa in dastuurkii maadaama oo aad jawhar cali guudlaawe madaxweyne ugu yeedhaysay aniga hogaamiye ma soo qoran karo adigoo cali guudlaawe madaxweyne ugu yeedhay sidaas bay noqon kartaa sidaasay noqon kartaa cadaadis bay noqon kartaa oo labada nin ay isku hayaan guddoonka baarlamaanka imaanaya maaragtay cadaadis siyaasadeed ku saaraya laakiin siiqa iska timid oo la iskaga soo qoray oo sheekh aadan iska qortay maaha waa wax khilaaf salka ku haya noocu doonaya hada ama gudoomiyaha baarlamaanka ha ahaado ama khilaaf kale oo aynan weli ogaanin ha ahaado laakiin waa khilaaf rasmi weeyaan dastuurkii ay qorteen ee uu ku dhaqmayay intii doorashadiisa ka horeysay iyo doorashadiisa intii ka dambeysayba ee hadda isbedeshay uun shalay isbedeshay oo shalay kaliya 3 qoraal oo u malaynaya inay 3 saacadood isku xigta la soo galiyay 3 saacadood isku xigta la soo kala galiyay saddexda qoraalba saddexdaba madaxweynaha dowladda jubbaland dowladda koonfur galbeed madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ku qornaa marka wax la iska dhahay iyo siiqa la iska soo qortay maahan ujeedo weyn baa ku jirta marka dastuurkii la ansixiyey oo isaga sheekh aadan ansixiyey ayuu isaga gacantiisa maantana uu inaleeyahay waxba kama jiro dastuurkii marka waa wax soo bixi doona laakiin dhaawac waxaa jira dastuurka uu dhaawacan yahay hadda siday ku socoto dastuurku in meelo fara badan isagoo markii horeba laga soo dhaawacay oo gudoomiye soo xulashadii hadda baarlamaanka koonfur galbeed laga soo ku soo dhaawacmay oo ninkii xildhibaanka ahaa ee gacantaaga lagu ansixiyey uu ku dhaawacmay wax fara badan isagoo ku soo dhaawacmay dastuurku oo wasiiradii weli ay xildhibaano yihiin oo wasiiradii xildhibaano yihiin oo dhaawacyadaas oo dhan qabay ayaa dadna ugu darsato gudoomiyihii baarlamaanka ninka hadda ugu sareeyay weli isaga gudoomiyihii baarlamaanka isaga actan weli muuna xilki wareejin iska muusan casilin muuna wareejinin marka dhaawac weyn baa ya dastuurku aad buu u jaban yahay way aad buu maasan tahay waayahay arrinta guddoonka baarlamaanka waxaad sheegtay Saadaad Caliyow iyo Cabdiqaadir Maxamed Nuur madaxana furan la isku hayo Cabdiqaadir JSP baa cumaamatay aadan madoobana JSP baa cumaamatay oo koonfur galbeed geysatay sidee buu aadan madoobe oo JSP ah uu ku taageeri karaa qof kale oo aan ahayn qofkii ay JSP gudoomiyaha wadatay nuurow siyaasadda soomaalidu mar walba maaragtay waa dabayl xagaa kolba dhinac bay u jeedsataa Saadaad Caliyow danihiisu ka dhex arkaa ninka la dhaho maaragtay sheekh aadan madoobe
oo gudoomiyaha baarlamaanka ahaa danihiisa isaga ka dhaxarka danaha Soomaaliya cid ka fikiraysa male wuxuu iska culayska siyaasadeed ee koonfur galbeed laftigeeda ka soo fuulaya iyo rabaa inuu iskaga yareeyo oo saami qaybsiga ninka hadda Saadad Cali waa beesha eelaybu ka soo jeeda marka waa reer Buur-Hakaba marka culays siyaasadeed oo fara badan bay reer Buur-Hakaba ku hayaan maamulka koonfur galbeed iyo Baydhabo ku hayaan oo waxay u nasab sheeganayaan inay iyagu yihiin meeshii uu ka soo fircamay isbedelkii ama uu ka soo unkamay isbedelkii koonfur galbeed ka dhashay iyagu inay hooyo iyo aabbo hayaan koonfur marka culays badan oo siyaasadeed oo gudihiisa ka saaran iyo rabaa inuu iskaga yareeyo marka xasanna culays Turkiga ka saaran buu rabaa inuu ku soo fakanin oo galka Turkiga ninkan u haya uu gacanta ku sii haysto marka waa laba rabitaan oo nin walba isaga rabitaankii culayska labada hadda nin marka ay kala raacsan yihiin waa beesha eelay iyo beesha Jarombi ka soo kala jeedaan dabcan labada beelood ka soo kala jeedaan waayahay maxaa macquula marka haddii arrintan sii socoto shalay waxaa la yidhi kulan bay galeen habeen hore kulan bay galeen madaxweynaha iyo aadan madoobe welina way isbari waayeen oo waxa ay ku heshiiyeen oo arrintaa ku saabsan mid jiro ma moodaa marka in furin kale ay xasan ku furantay oo markii hore uu ku xisaabtamayn horta furin dagaal kuma furmayso oo furin dagaal way ka soo xidhantay xagga koonfur galbeed kulli lacag baa la kala qaadan doonaa laakiin furin siyaasadeed weeyaan laakiin lacag baa la kala qaadan doonaa ugu dambayntana Sheekh Aadan uu qancin doonaa Xasan Sheekh Maxamuud waa inuu dhaqanaan soo barannay oo ku soo fahanay oo inuu bilihii u dambeeyay oo dhan ku soo dhex jirnay koonfur galbeed buu ahaa marka ugu dambaysa Sheekh Aadan uu qanci doonaa rabitaanka Xasan Sheekh Maxamuud baana la isugu imaan doonaa laakiin culays hadda inuu saaro oo adkeeyo meel adag gaarsiiyo waa macquul laakiin ugu dambaynta wadada Xasan Sheekh Maxamuud marayo oo JSB rabitaankeeda baa la isugu imaan doonaa nurow aad ma santahay abshukur gabagabada shalay maqribkii waxaa hadlay madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed waxa uuna markaasi ka dhawaajiyay arrin dad badani ay la yaabeen oo qaar hanjabaad u arkeen qaar calaacal u arkeen qaar oohin siyaasadeed u arkeen madaxweyne xasan buuna ku yidhi waad naga hor dhiman doontaa annagu ma dhimanayna adaa dhiman doona iyo erayo la mida hadalkaas maxaa lagu fasiran karaa abshukur nurow hadalka dadku siyaabo badan bay u fasirteen walow dadka dee aan siyaasadda u dhunduleyna u fasireen inuu calaacalay hadalkaasi calaacal ma ahayn hanjabaad meeshii u dambeysay buu ahaa waxyaabuhu hadalka usoo qaatayna 5 Juun iyo 4 Juun waxyaabihii dhacay bay ahaayeen dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho ayuu usoo qaatay lagu soo weeraray naftoodii dhiigooda lagu banaystay marka wuu hanjabay sida aan xogo ku haynana nimankaasi niman dee isdhiibay ama hub laga qaaday midna ma ahan Shariifku hubkiisii waa haystaa ninka la dhaho khayr hubkiisii waa haystaa waxyaabihii la inoo soo bandhigayay oo iska fan broachka ahaa ama brankiga ahaa maysan hub iyagu ku lahayn hubkoodii iyo weliba hubabay kusii darsadeenba way haystaan marka hanjabaad meeshii u dambeysay bay ahayd adaa naga hor dhiman doona annagu ma dhimanayno adaa naga hor dhiman doona muusan ula jeedin aday naftu kaa hor baxaysa muuna u jeedini siyaasaddaad naga hor dhimanaysaa weeyaan annaga siyaasadda kaaga dambaynayna dee aniga muuna dhihin laakiin annagu yidhi jabac buu u jeediyey shakhsi annaga ka mid ah ayaa siyaasadda soo fuulaya adna meeshaas xoog baan kaaga soo saaraynaa ayuu u dhacay siqaasi aad hanjabaad wallaahi tuma wallaahi di faraha uu hanjabayay maxaa Cabdullaahi Farmaajo sidii oo kale oo wallaahi tuma wallaahi una ku jirin laakiin hanjabaad noocaasa ayay ahayd hanjabaad meesha uu ka jeediyay Sheekh Shariif marka dagaal baa loo fasiran karaa haddii aad heshiis diido dagaal waa lama huraan bay u egtahay ha dagaal waa lama huraan bay weeyaan haddii aad heshiis diido annagu dagaal baan diyaar u nahay waan kula dagaalamaynaa waan iska kaa dhicinaynaa hadalladiisa marka dib loo wada fasiro waan iska kaa celinay waan iska kaa celinaynaa filadan xoog baan kaaga saarnaa hadalladiisu inta badan ku qutumeen marka waa hanjabaad haddaad xasan oo aad diido wada hadalka la soo wado iyo wada hadalladii waan waanta haddaad diido adaa naga hor dhimanaya oo naga hor baxaya weeyaan marka waan diyaarsannahay dagaal baanan kugu yaan iskaga kaa celinaynaa bay iyo hadalkaasi u dhacayay aad baa umahadsan tahay cabdishakuur waa ku mahad celinayaa daawadayaal subax wanaagsan intaasaan kusoo gabagabanaynaa barnaamijka intaynu mar kale kulmi doonno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu